isagoo ka qayb galayay xaflad lagu soo xirayay tababar ciidamo ka tirsan kuwa booliska dalkaasi Masar xarunta akademiyada booliska ee magaalada Qaahira iyo madaxweynaha dalkaasi Cabdifataax Al-Azizi waxa uu soo hadal qaaday taageerada dhinaca sanadda ah iyo tan kale ee dhinaca militariga ah ee ay dawladda Soomaaliya siiyeen. Cabdifataax Al-Azizi madaxweynaha waddanka Masar waxa uu sidoo kale sheegay in ujeedka dawladda Soomaaliya ay u taageerayaan ay tahay in Soomaaliya ay isku filnaato marka loo fiiriyo ciidan ahaan iyo ammaan ahaanba maadaama 30 sano ee la soo dhaafay ay ku jirtay xaalad qalqal ah. waxa uu sheegay in ujeedka ugu weyn ee ay u taageereen Soomaaliya uguna taageereen dhinaca sanadda ciidamada ay tahay in ciidamada Soomaaliya ay gaaraan isku filnaansho dhinaca amniga ah sidoo hadalka u dhigay. mar wax laga weydiiyay in dawladdiisu ay doonayso in Soomaaliya Itoobiya ay kula dagaalanto ayuu hadalkaasi waxba ka jiraan ku tilmaamay. waxaana uu yiri marka loo fiiriyo dhaqankeena ma doonayna in Itoobiya aan Soomaaliya kula dagaalano noomana qorsheysna laakiin ujeedka ugu weyn ee Soomaaliya xilligan u gacan siinayno waa inay ammaan ahaan iyo ciidan ahaanba isku filnaato maadaama 30 sano ee la soo dhaafay ay burbur iyo waliba xaalad ammaan xumo ay ku jirtay. Cabdifataax Al-Azizi waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya markasta ay garab taaganaan doonaan waxaana inta uu ku daray in taageerada dhinaca maaliyadda iyo sidoo kale dhinaca kale ee sanadda ciidamada ay sii wada doonaan. waxa uu la hadlayay cutubyo ka tirsan ciidamada dalkiisa oo tababar loo soo xiray. warbaahinta qaar ayaa qoraysay ciidamadaas inay qayb ka noqon doonaan ciidanka dawladda Masar ay u qorsheysay Soomaaliya inay u soo dirto sanadka la soo socda ee 2025 markaas oo dalku uu ka bilaaban doono howlgalka Midowga Afrika ee cusub ee Soomaaliya. dawladda Itoobiya ayaa hore u sheegtay in taageerada dhinaca militariga ah ee masaaridda Soomaaliya ay siinayso ay qayb ka noqon doonaan halis dhinaca amniga oo gobolka Geeska Afrika ka dhalata. sidoo kalena waxa Itoobiya halis ay ku tilmaantay ciidamada Masar ee Soomaaliya imaanaya sanadka soo socda. wiilkaygiiyow ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Soomaali Suudaneys Hospital SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega